السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتي أنا كوحيدان برتان كلنا يوتيوب كبرشة شيبارك سو دواada inta inaan u galin mawduuceena maanta waxaan doonayaa inaan la wadaago inaan gaadhnay 1000 subscribe bishii aan soo dhaafnay ilaahay baa mahad leh marka xiga mahadaxas kale asxaabta sharafta leh ee halkaan soo gaarsiiyay aad baad ugu mahadsantihiin dhiirigelintiina waan idinka mahad celinayaa waxaan rajeynayaa insha Allah halka iyo meel ka sareysa inaynu gaari doono waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkan gudihiisa intaan ku jirnay inaynu 10,000 oo subscribe gaari doono si fiican buu channelkeenu u socdaa dibdaba bishan 100 iyo 1,000 iyo xoogay buu marayaa maasha Allah aad baad mahadsantihiin waxa wax lagu yahay waa asxaabta marka anigana dhiirigelin bay noo tahay idinkana inaanu waxyaabo idin anfacaya idin soo gudbino anagana wayna dhiirigelinaysaa idinkana waxaan rajeynayaa inaad wax naga faa'iidaan insha Allah inta ka sakow mawduuceena maanta wuxuu daaran yahay waxaan ku jirnaa horta casharaantii taxanaha ee jirka qaybihiisa kala duwan ee xubnaha jirka waliba qaybta internal organs ama xubnaha jirka ee gudaha waxyaabo badan waynu soo qaadanay kamid yihiin wadnaha iyo sanbabka iyo maanta waxaynu soo qaadanaynaa caloosha sidii caadada ahayd waxaynu isweydiinaynaa caloosha xagee bay ku taalaa shaqada ay qabato xanuunada ku dhaca waxyaabaha lagula tacaalo waxyaabahaas aynu isweydiin doonaa insha Allah guud ahaan horta caloosha xagee ayay ku taalaa ayay ugu horeysa caloosha waxay ku taalaa qaybta sare ee bogga ama caloosha uun qaybtan uurku jirta loo yaqaano gaar ahaan dhinaca bidix ee hoosta feedhaha ayay ku taalaa waxa ku xiriirsan oo xagga sare kaga xiriirsan hunguriga esophaguska ayaa xagga hore kaga xiran qaybta dambana duodenumka ama mindhicirka ayaa xagga hoose iyadana kaga xiran shaqada ugu weyn ee ay calooshu qabato shaqooyin badan bay horta inoo qabataa waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid ah inay inoo kaydiso cuntada muddo gaaban oo aynu inta dheefshiidka iyo waxyaabahaas iyo nafaqooyinka iyo waxyaabahaas la kala qaybinayo in calooshu ay inoo kaydiso cuntada sidoo kale waxyaabaha ay ka qayb qaadato waxaa ka mid ah burburinta cuntada iyadoo la isticmaalayo enzymes iyo hydrochloric acid meesha cuntada lagu cajiima waxa weeye waa caloosha waxa kale oo ay samaysaa in waxyaabihii jeermiskii cuntada kuu raacay ay kaa disho sidoo kale inay kuu diyaariso cunto jilicsan oo u gudubta mindhicirka ama mindhicirka yar loo gudbiyo intaas waa shaqooyinka ugu muhiimsan ee ay noo qabato xanuunada ku dhaca kuwooda ugu badan caloosha waxaa ka mid ah waa gastritis-ka oo noocyo badan leh gastritis iyo gastric ulcer-ka acid reflux-ka dyspepsia-da maxay ahayd tooley constipation-ka oo calool istaagiya waxaa kaloo ka mid ah kansarka caloosha ku dhaca waxaa kaloo ka mid ah dheefshiid xumo inay caloosha ku dhacdo waxyaabahaas oo dhan waa xanuunada ku dhaca caloosha kuwooda ugu daran laakiin inta badan waliba dadkeena ku soo noqnoqda Soomaalida waxa labada qodob ee ugu muhiimsan waxa weeye waa calool istaaga iyo waxa loo yaqaano gastrida waayo waxyaabahan kale ee sida kansarka iyo dheefshiid xumada iyo waxyaabahaasi waa riir laakiin 10kii qof ee aragto ugu yaraan 4 ka mid ah ayaa ama 5 ka mid ah waxay ka caawinayaan gastri iyo maxaan ku dhahay waxa loo yaqaano gastriga iyo maxaan ku dhahay waxa loo yaqaano calool istaag ama constipation waxa loo yaqaano waxaa jira haddaba daawooyinka ugu muhiimsan ee badanka lagula isticmaalo waxaa ka mid ah haddii ay jirto gastric ama gastritis oo kale noocyada gastrida ee kala duwan in loo isticmaalo dawooyinka gastrida sida anti-acidka iyo H blockers iyo BPI iyo haddii ay bacteria oo kala keentay caloosha waxaan jira in antibiotics oo noocan triple loo isticmaalo iyo ay loo sameeyo noocyada BPI-ga ama nooc ka mid ah gastriga oo sida BPI-ga waxaa ka mid ah osabrosol iyo pantoprazole iyo waxyaabaha aynu isticmaalo waxaa jira mararka qaar xuubka caloosha in autoimmune wax la yaqaano ay jirto oo isagu jirku si gaar ah isu weeraro oo xuubka caloosha ee hoose la dagaalamo waxyaabahaasina inta badan waa waxyaabo ay keenaan ama waxyaabo jirka gudihiisa ka yimaada ama external factors haddaba waxaa jirta
mararka qaar caloosha in qofku ka dareemo oo kale haddii ay ku jirto ama dheefshiid xumo oo kale jirto in matag iyo ilaalwo iyo waxyaabo noocaas oo kale uu dareemo iyana qayb bay ka tahay. Marka qaybahaas oo kalena waxyaabaha lagula tacaalo waxaa kamid ah Metoclopramide iyo Domperidone iyo waxyaabahaas. Waxaa jira talooyin guud oo general ah tusaale ahaan qofka inta uusan ama constipation ku dhicin ama uusan ku dhicin gastritis ama waxyaabo kale sidee buu la tacaalaya. Horta waxyaabo lagula tacaalayo waxaa kamid ah mar kasta oo aad wax cunayso in qofku nadaafadda ku dadaalo oo tusaale ahaan nin weyn waa kii faraxalan intuuna kaga dhigin inuu faraxal sameeyo oo qofku uu farxasho. Ta labaad waxa weeyaan in uu sameeyo cuntooyinka dufanka badan leh oo kale uu iska ilaaliyo. Cuntooyinka casaanka uu ku badan yahay ee saliidda badan leh inuu iska ilaaliyo. Haddii xataa uu qofku cunto cas cuno inuuna ku seexan. Cunto oo dhanna inaanu ku seexanin qofku. Cuntada tusaale ahaan weelka qofku isticmaalayo waxyaabaha nadaafadeeda inuu waxyaabahaas oo kale uu aad ugu dadaalo qayb bay ka tahay. Sidoo kale si aanu constipation u iman oo ama calool istaag u iman oo kale qofku inuu ku dadaalo cuntooyinka jilicsan oo kale inuu isticmaalo. Waxaan jeedaa cuntooyinka adag oo kale tusaale ahaan garowgii oo kale, shuuradii oo kale, sarreenkii oo kale waxyaabahaas inuu isticmaalo qofku uu noloshiisa parties ka mid ah u dhigto. Weliba habeenkii oo kale. Sidoo kale qofku inuusan mar walba una wax cas una ku dadaalin oo tusaale ahaan hadduu noloshaadu bariis iyo baasta xoolo noqoto. Constipation iyo gastritis labadiiba khatar ayaad ugu jirtaa iyo dheefshiid xumo intiiba inay kugu dhacaan. Markaas guud ahaan maanta caloosha iyo qaybaheedii intaas ayaynu kaga tagnay haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan rajaynayaa insha Allah waxaan ka cudur daaranayaa asxaab badan oo iga codsaday inaan shaybaadhada aan xoogga saaro. Insha Allah waan inoo diyaarinayaa. Kolley wax la diyaarinayo oo maxay ahayd la doonayo in dadku ka faa'iideystaan waa in waqti ay qaadato oo adiga soo diyaarisid mowduucii aad maalintaa ka hadli lahayd bulshada u soo bandhigtid si wixii ay wax uga faa'iidaan oo wax faa'iido leh aad ugu soo bandhigto. Marka insha Allah waan dadaalaynaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaan casharaanta muddooyin gaagaaban oo isku xigaan noo soo gudbino. Meel kasta aad joogtaan aad baan idin salaamayaa asxaabtayda sharafta badan. Waxaan rajaynayaa inaan halkaa aan joogno iyo meel ka sareysa aynu gaari doono insha Allah. Wax kasta waxay ku xiran yihiin dadaal iyo samir. Marka meel kasta waynu gaaraynaa. Casharaanta yar oo fiicanna waan idin soo gudbin doonaa insha Allah. Khayr badan baan idin rajaynayaa meel kasta aad joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.